السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta dalka joogta iyo inta dibadda joogtaba waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan kariim, Ramadaan mubaarak. waxaan wadnaa barnaamijkii ahaa xalka qoyska. waxaan mar walba ku dadaalnaa in aan soo gudbino borogaraamkan, waqti gelinaa, mar walbana ku dadaalnaa in ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan in aan wacyi gelino. inkastoo ay jiraan dad anaga naga cilmi badan, naga aragti dheer, laakiin anaga waxaan isku xil saarnay inta Ilaahay naga garadsiiyey in aan soo gudbino. run ahaantii qoysaska Soomaaliyeed markaan aragnay burburka iyo baaba'a ay ku sugan yihiin ayaan garaysanay in aan soo gudbino barnaamijkan loogu magac daray xalka qoyska. qaybta koowaad waxaan uga soo sheekeynay in gabadha ay ku dooran doonto xaaladaha iyada wadanka ah ama sharafteeda ku jirto ninka guursan lahaa. qaybta labaad waxaan ugu sheekeynay ninka xaaska uu guursanayo wuxuu ku xulan lahaa. qaybta saddexaadna waxaan ugu sheekeynay gabadha markii guriga lagu keeno habkaad kula dhaqmi lahayd. qaybta afaraad waxaad naga sugaysaan waxaad naga sugaysaan isla habdhaqankii iyo ciladaha keena furiinka iyo ciladaha sababa inuu guriga sii jiro, lagu baraaro, sharafta sii dhoornaato, laisku faraxsanaado ayaad naga sugaysaan. anagana waxaan diyaar u nahay inaan halkan idinku soo gudbino. fadlan haddaad janalka ku cusub tahay subscribe-ka noo saar, haddaad hore noogu jirtayna sheerta iyo like-ta, commentigana fikradaada kusoo dhiibo san anagana u dareenno dad nagu xiran inay jiraan. marka shanta qodob ee hadda aan soo qaadanayno ayaan sii gudagelaynaa iyo borogaraamkan aan wadnay. qodobka koowaad waxaan la hadlayaa ragga iyo dumarka labadaba. qodobka koowaad, guriga ama reerka dhexdooda mar haddii uu jiro in yar oo shaki ah, naagtana ay is leedahay ninkan amuu meel kale ku jiraa, ninkana uu is leeyahay naagtan markaad ka shaqo tagtid ama meel aad aadid amay barnaamij kala samaysaa, gurigii in yar inta ugu yar hadduu shaki jiro gurigaas laasiman waa kii burburo ugu dambeyn. waa la hubaa gurigii kala shaki soo galo ma sii raago. marka waxaan idinku waaninayaa qoysaska cusub iyo qoysaska hor u jirayba in aad iska ilaalisaan cilada la yiraahdo ama arinta la dhaho shakiga. waayo qofka bini'aadanka adiga ma ilaalin kartid, asigana ma ku ilaalin karo. labadiinuba waxaa idin ilaalin kara Ilaah. marka waxaad ku aamintaa qofka bini'aadanka Ilaah dartiis, waxaadna ku jeclaataa Ilaah dartiis. waayo labada qof Ilaah dartiis isku jeclaada, Ilaahay shakhsiyaadka ee koonka ku nool waa dadka ugu jecel yahay. qodobka koowaad waxaa idin leeyahay gurigiina hadduu inuu sii jiro ood isku raagtaan aad doonaysaan, shakiga iska saara. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, xaaskaaga adiga guriga ayaad soo gashay, ninkaan la hadlaya guriga ayaad soo gashay, waxaa laga yaabaa in dibadda dagaal, caro, burbaleem, adiga wax badan aad dibadda kula soo kulantay. guriga markaad soo gashid xaaskaaga waxay kugula soo carartay weji faraxsan
maxaa la jiray soo dhaweyn kalgaceel marka adiga maxaad samaynaysaa ragga qaarkood waxay sameeyaan caradii dibadda kugu soo dhacda ay gurigooda la soo galaan waxaa loo baahan yahay gurigaaga markaad soo galaysid wixii problem ahaa wixii adiga buuq ahaa wixii cara ahaa in aad albaabkaaga iska dhigatid haddaad doonto berita markaad tegaysid madaxa saaro laakiin gurigaaga albaabkiisa markaad timaado waxaa la rabaa caruurtaada xaaskaaga hadday hooyada kula degan tahay aabbahaaga familkaaga oo dhan ugu horeyso qoftaan dee oo adiga mas-uuliyadeed aad haysid hooyadaa way ku dhashayba iyadaa ku dhashay way kuu dulqaadan kartaa laakiin xaaskaaga adiga mas-uul baa ka tahay waxaa laga yaabaa in ay qalad kuu fahamto laakiin hooyadaada dabeecadaaday taqaanaa way ku soo korisay intaasay kula soo ekeysiisay inaysan qalad kuu fahmina macquula ninkaan ay isdhahda maanta dibadda buuq uu kusoo galay ahaa farha laga qado laakiin xaaskaaga inay noloshaada weli si fiican u barana laga yaaba marka intay kaa baranayso dabeecadahaaga waa inaad isku dayda inaad xakamaysid caradaada xaaskaaga markay kusoo dhawayso xabiibi ay ku dhahdo waa inaad ugu jawaabtaa xayaat raggeena soomaalida inta badan waxa lagu eedaa inaysan romantic ahayn oo hadallada dabacsan ay u moodaan wax ceeb maahan hadalka wanaagsan marka horeysan waa maxay hadalka wanaagsan waa sadaqada aad gacanta ka dhiibayso kale ayuu la mid yahay hadalka wanaagsan haddana xaaskaaga sawjadaada xilahaaga iyo noloshaada haddaad hadal wanaagsan kula haysto waa kasii fiican yahay qodobka labaad waa qodobka saddexaad oo buuq mar walba uu ka dhasho inta badan gabadha shaki wax ku abuura waxay tahay adigoo guriga jooga oo adig iyadoo wada fadhiya idinkoo kaftamayo kale ama caadi u wada fadhiyo sheeka caadi idin socoto ama idinkoo wada cunteynayo kale ayaa telefoonkaaga soo dhacay cilada ay ragga Soomaaliyeed ay dumarka dusha ka saaraan haddana qaladka iyaga ay leeyihiin idin sheegay adiga asxaabad leedahay friendisa leedahay qofta aad guursato ka hor gabar baad isla socoteen waad kala harteen calafkaaga qoftaan ay Ilaahay kugu daray marka waxaa laga doonayaa in gabadh ku soo garaacdo ama wiil ha ku soo garaaco xaaskaaga in aad ku qancisid qof walba ku soo garaacina iyada mudnaanta ay leedahay qof walba ku soo in qofku ku ag fadhiyo uu mudnaanta leeyahay waayo qoftaan ayaa maanta xaq kugu leh haddaad doontid qof aad la sheekaysatid oo xiriir idinka dhaxay ha noqoto laakiin mudnaanta xaaskaaga ayaa iska leh iyada ayaa laga doonayaa in mar walba mudnaanta aad siisid cilada kalena waxay tahay markii telefoon noocaas oo kale soo dhaco way la istaagaan oo gabadha agteeda ay kala fogaadaan waa barta ugu horeysa ee shakiga ku abuuro dumarka hadday tahay adiga qof muhiim oo inay maqasho aad diidan tahay si professional aad ula hadli kartaa xaaskaaga noqdada ka ilaalinayo ama waaba ku jari kartaa inkastoo markaad ku jirtid cilada ay sii badanayso shakiga sii badanaa haddana waxay ka sii roonta inaad la istaagtid oo aad kala fogaatid ayaa ka sii daran cilada saddexaad oo furiinka keenta waa taas cilada afaraad waa cilada mar waliba aan raggeena markaan nahay anaga oo aan ku dhaqanno si uu soo bax moobeeladan casriga ah moobeeladan beer salaaxa ama moobeeladan oo cusub waray dhamaadkii waxaan arkaa 100% cilada ka timaada gabadhaada ama xaaskaaga ku ag jiifta ayaad 90 waxaad ku fooraraysaa mobilkaas aad ku fooraraysid ida kama qiimo badna kama muhiimsana laakiin adiga xumaan kula maaha laakiin waxaad ogaataa xaaskaaga iyadoo ku ag jiifto soo jeedo aan hurdin haddaad ka mashquushid oo wax kale ugu mashquushid wax walba ha noqdee inay caloosheeda ama uqdad nafsi uu ku abuurmi karo marka waxaan ku leeyahay marka gurigaaga joogtid wax walba oo shaqo ah dibadda ku soo dhamayso gurigaaga adigoo fresh ah oo xaaskaaga caruurtaada fresh ah waa inaad timaadaa cilada shanaad
mar waliba xaaskaaga way kula hadasho iyadoo caraysan hadday kula hadasho inaad hadal dabacsan oo qalbigeeda bedeli kara oo xanaaqeeda dejin kara kula hadal. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka noo saar walaal. annaga adiga ayaa dad waxaan nahay isleh, waxaan nahay dad aan kala maarmin, waxaan nahay mar walba dad inay isku xirnaadaan loo baahan yahay. waxaan la yaabay nin youtuber ah Soomaaliyeed maxa uu gaari waay milyan. maxay tahay annaga milyan adaa ma gaarnimaya Soomaalida? maxay tahay ciladana haysato aan milyan adaa u gaari karin? youtuber keen ugu caansan milyan ma gaari karo. waxa sababa anaga milyan waan ka badannahay. marka walaalnimadeena maba ahayn in aan isqabyaaladayno oo kala go'sanaano, laakiin waa inaan qalbiga isku furnaa. hal baan nahay, Soomaali baan nahay, walaalaan nahay. waa inaan mar walba ku dadaalnaa in aan qalbiga isku furno, isa soo dhaweyno. insha Allah Ramadaan Kariim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.